taste بدلي إيمان من الشتون كما هضمها جلي لكن سمت باتتي markaad codkaasi maqashaan waxaad isweydiinaysaan waxaan idiin soo wadnaa waraysi hees mise fanaanada oo meel booqatay ama bandhig fadana qabanaysa haddaba waraysigan aanu la yeelanay ayaan taleex waa uu ka duwan yahay kuwii hore fanaanada ayaa goor dhaweyd oo caawa ah waxay shaacisay inay gebi ahaanba albaabada u laabtay iskagana baxday fankii haddaba fanaanada ayaa imika khadka telefoonka si toos ugu jirta ugu horeyn ayaan kusoo dhawo warbaahinta kalshaale.com waad mahadsantahay walaal aad baan idin salaamaya dhammaantiin shaqaalaha kalshaale aad bay salaamtay walaal bal bal ugu horeyn waxaad faahfaahin kooban naga siisaa wararka sheegaya inaad iskaga baxday fankii oo aad muddooyinkan u dambeeyay safka hore kaga jirtay walaal waxa weeyaan arrinkaasi waa arrin daba waa arrin jirta weeye walaal go-aan baan ka qaatay inaan fanka kusii jiro yani waa wax in muddada jeclaa runtii inaan ka baxo haddana de iska alagta fanka sida laga baxo balse iminka aan go-aan ka qaatay inaan adeer insha allah jaalibna waa waxaa rajeynayaa in ilaahay go-aankaygii adkeeyo waa tahay waa arrin aada u fiican bal ayaan waxaad nooga warantaa xilliga aad kusoo biirtay fanka iyo muddadii aad ku jirtay iyada walaal fanka waxaan si toosa usoo biiray sanadkii 2010 markay ahayd waxaan ku jiraa iminka muddo 3 sano ah tii afraad baa ii socotay iminka ay bilaami lahayd yani shaksiyan muddo badan fanka runtii ku jiray oo waxa weyan fankani anigoo yar runtii u bilaabmay oo de mataqaana aan iska alifi jiray oo aan wax iska qalqaadi jiray balse inaan soo shacbaxo masraxyada soo istaago 2010 guurisa wala waa tahay adigoo ayaan ka faa'iideysanaya fursadan uu ku siisay shabakada kalshaale maxaad ugu baaqaysaa dhammaan taageerayaasha iyo weliba asxaabta kale ee fanka haatan kusii jira aad iyo aad baan salaamayaa dhammaan taageerayaasheeda adduunka calanka ku kala nool waxaan leeyahay walaal aad bay mahadsantihiin taageerada la buuxday intii muddadan fanka ku jiray dhammaan fanaaniinta soomaaliyeed waan salaamayaa salaam qaalin ku salaamayaa waxaan ilaahay uga baryayaa runtii wax runtii horta xagga ilaahayna lagaga fogaanayo xag adduunyada runtii dee faa'iido badan ba kuma jirto hadda waktigan sidankan ku jirna haddaan nahay fanaaniin soomaaliyeed oo annaga dee mataqaanaa time fara badan ku beelbaashinana marka waxaan ilaahay horta uga baryaa mustaqbal fiican fanaaniinta wixii kusii jirana mustaqbal fiican baan ilaahay uga baryayaa in ilaahay dawlad soomaaliyeed oo rasmiya ilaahay lacageeda ku istaagto ilaahay siiyo oo dee fanaaniintana ay taageerada kala ka hayso ayaan ilaahay uga baryayaa waxaan kaloo ilaahay uga baryayaa dee ilaahay dee wixii khayrka ku jiro wadada xagga islaam ilaahay dee ummadda keligeeda wixii dee ilaahay lagaga fogaanayo marka insha allah aad baan dhammaantiin idin salaamayaa